بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتوا أي تاريخ تهاي لبضة بش السديدات لبضة كونية السديدية طبعاً وحى عن مجالات برعاء حرونته قبل كتوجر كوقا بنية شركة شرايد. حكت أي شيء جيسا سيدا أي شيء جيسو وحسوا قاري مجالات برعاء وكسوا قاري لنا عن مجالات هرجيسا أمر لدونيو إن لا يقبض. إن قفك اللي حروه وحرية دي سفر لوجا قاضي وحيسكن نقطة وحيسك عادة. لكن هذه لا يحريه حمر يجا ديرية يجا له حرير مغضة يمد غرسون. هذه لا يحريه عبد إلى يتقرأ جيسة تلس كاسي وهلاك سمي ودعي أنت صاحر دينا ويصير رفانيسا عبر قاضشنا وينوجو سجنته. haddii la xidhayo warbaahinteeda iyo wararka aanay jeclaysanayn taliska Muuse Biixi waxay noqonaysaa caburin iyo aragti kaleba yaana jirin taasina wax suuragal maaha wax la ogolaan karana maaha. 7 bilood magaaladaydan Burco waxaan uga maqnaa waa lagu qabanaya iyo waa lagu xidhaya. runtii sharcigana waxa fiican in loo sinaado oo noqdo sharcigu mid dadka oo dhan xumuhay wada qabanaya. laakiin hadduu noqdo sharciga waratada ganaaxa wasiirkana gool u looga sidii uu sheegay warsame sharcigaasi sharci maaha. waxa jira kuwo aaminsan inay iyagu Soomaaliland dadka ka xigaan inay iyaga aan Soomaaliland looga baqayn oo midha iimaankooda Soomaaliland baa midha sareeya ayaan kuwa ku sifeeyay. waxay kaloo ka aaminsan yihiin qeyrkood in iimaankoodu hooseeyo iimaankooda طبعا Soomaaliland inuu hooseeyo oo iyaga looga baqayo. Soomaaliland waa la wada leeyahay cid ka sareysa ma jirto waxaasina wax la ogolaan karo maaha. waxa xusid mudan doorashadii ugu dambeysay ee ka dhacday Soomaaliland gaar ahaan doorashadii madaxtooyada ama madaxweynaha Muuse Biixi meelo kala duwan ayaa laga taageeray. dadka taageeraya waxa weeye dambay ka lahaayeen cid kasto cid taageeraysaana tii dambay ka leedahay. dhinacyadii taageeray Muuse Biixi waxa kamida taliska Cabdiile waana la wada ogyahay. laba arrimoodna ugu muhiimsana wixii loo taageeray Muuse Biixi. kow in taliska Cabdiile loo fududeeyo waxa kaga xidhmay Soomaaliland. laba in Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon waxa laga qabto lana amsiyo. runtii arrinkaasi arrin la aqbali karo maaha. qaabkan wax loo wado oo taliska Muuse Biixi u wado oo ah inuu xarig u adeegsado dadka ka aragti duwan yani wax xalab maaha. yani waxaana inoogu sugan oo lagu dayay oo dawladaheena jaarka haddaynu eegno Ethiopiyadaas kacdoon baa ka socday 3 sanadood. kacdoonkaas waxay ahaayeen caburin iyo aamusiin iyo xarig. way diideen dadkaasi maya bay yiraahdeen kumanaan baa kaga dhintay. maanta waxa loo yeelayaa siday doonayeen. dadkii madaxa kaga taagnaana maanta way hooseeyaan. marka cibra qaadasha inoogu sugan dalka waa la wada leeyahay xal maaha xarigu. intaas aan ku soo gabagabeynaya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.